بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عبد الرحمن يوسف أحمد وكمدا دلنيرada seniorka ka qalan jabinay sanadkan 2020ka jaamacadda Golis University waxaan ugu horeyn mahad celinayaa TV-gan Horyaal oo fursad noo siiyay in maxaan ku raadayay aan la wadaagno bulshada dareenkayga farxadeed oo ku saabsan qalin jabinta iyo guusha aan gaadhnay dhamaanba waxaan kaloo mahad celinayaa waalidiintayda iyo sidoo kale mas'uuliyiinta iyo howlwadeennada jaamacadda kuwaas oo si hagar la'aan ah geedi socodkii dheeraa iyo muddadii waxbarashadu noo socotay bana garab taagnaa talo iyo tusaale iyo aqoon kale oo dheeraadaba nagu garab taagnaa jaamacadda Golis runtii Soomaalidu wax ku mahmaahdaa sahan la'aan reer ma guuro waxyaalaha aan ku dooranay waxa weeye aqoonta heerka sare ah oo tayeysan hadday noqoto dhinaca theory-ga iyo dhinaca practical-kaba maxaan ku dhahdaa qalabkeeda tayada sare leh maxaan ku dhahdaa nidaamkeeda joogtada oo saxan taasoo waliba inagu weheliyaan mararka qaar aqoon dheeraad ah oo nooga yimaada dibadda sida dad ajaaniba oo wata aqoonta heerka sare iyo khibrad dheeraad ah oo kala duwan jaamacadda Golis runtii waa jaamacad xididadu aasan yihiin oo aan u baahnayn identity ama maxaan ku dhahdaa aqoon la sharaxo oo in iyada ma garanaysa dadka laga dhaadhiciyo jaamacaddaas inay jirto qoraxda duhur joogtiyo dayaxan nuuran baaha ay Soomaalidu tiraahdaa jaamacaddaasi waa jaamacad waxa weeyaan aad iyo aad ugu xeel dheer dhinaca aqoonta iyo kobcinta iyo tabantaabinta ardayda farxadeeda mar labaad iyo mar saddexaad waxaan la wadaagayaa saaxiibaday waalidiinta iyo dhammaanba dhalinyarta reer Somaliland waxaan kaloo intaas ku dari lahaa ardayda walaalaha ee naga dambeysana inay jaaniskooda sidii iyo si ka fiican uga faa'iideystaan wabillahi tawfiiq bismillaah magacaygu waa Cabdiqani Maxamed Axmed waxaan ahay arday kamid ah ardayda jaamacadda Golis ka qalin jabinaysa gaar ahaan kulliyadda businesska gaar ahaan departmentka accounting and finance ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa madaxda jaamacadda iyo dhammaan macallimiintii waxna soo bartay marka labaad waxaan u mahad celinayaa waalidkay aabaha iyo hooyaday oo runtii hayaanka dheer nala soo galay dadaal aanan marnaba hilmaami kareynin dhammaanba cid alle iyo ciddii ka soo qayb qaadatay hayaankayga waxbarasho waxaan u leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin ma gudi karna abaalkiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo magacaygu yahay Samsam Aadan Cabdilaahi oo ka socda kuliyadda midwife-ka jaamacadda Golis ah ardayda seniorka 2020 ka baxaysa waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinayaa Horyaal TV jaamacadda iyo dhammaan macallimiinta maamulka jaamacadda Golis iyo waalidkii dadaalka dheer iyo waqtiga igala soo qayb qaatay inaan heerka gaadho aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin magacaygu waa Farxaan Carab Axmed ardayda ka baxaysa sanadkan 2020ka jaamacadda Golis gaar ahaan departmentka of engineering waxaan u mahad celinayaa Horyaal TV kuwaasoo ila qaybsaday farxadeedii ku saabsaneed qalin jabinta waxaan sidoo kale u mahad celinayaa macallimiinta iyo maamulka jaamacadda oo hil iyo hoob ay garab taagnaa ilaa maalintan bilaabay ilaa maanta aan taaganahay dhamaadka jaamacadda sidoo kale waxaan u mahad celinayaa family-gaygii walaaladay maamaday oo mar kasta iyaguna hil iyo hoob ay garab taagnaa kuwaasoo maantana heerkan soo gaarsiiyay waxaan dhihi karaa la'aantood halkan ma soo gaadheen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo jecel guushayda bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Axmed Saleebaan kamida ardayda sanadkan ka qalin jabinaysa jaamacadda Golis farceeda magaalada Burco waxaan u mahadnaqayaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu soo gaarsiiyay xilligan iyo madashan inaynu soo gaarno farxadda qalin jabintayda waxaan u mahad celinayaa marka labaad TV-ga Horyaal oo ka qayb qaadanaya nala maamuusay nala weyneynaya munaasabadda qalin jabintayda iyo waliba farxadeeda aan ku gaarnay muddadii aan soo wadnay hayaanka waxbarasho ee jaamacadeed marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo mas'uuliyiinta jaamacadda Golis farceeda magaalada Burco oo intii aanu muddada waxbarashada ku jirnay noogala qayb qaatay si qurux badan inaanu qaadano aqoon tayo leh oo waliba ku qaadano deegaan ku habboon waxaan u mahad celinayaa dhammaanba waalidkayga asxaabtayda family-gayga iyo waliba ardaydii aan isku galaaska ahayn muddadii aan wax soo dhiganayn waxaan leeyahay dhammaantiin waad mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim thank you very much Horyaal TV for organizing such a wonderful event and visiting our campuses to understand or to know about our current progress at Golis University. First and foremost,
I would like to congratulate all the Golis University graduates for the current year 2020. We congratulate students in the Faculty of Business and Economics, students in the Faculty of Medicine and Health Sciences, students in the Faculty of ICT, students in the Faculty of Engineering, and students in the Faculty of Sharia. You have been working hard ever since the beginning of your programs, and now you're about to experience the fruits of your education. Your hard work has finally paid off. I would also like to welcome the new intake, newly admitted students to the university. At Golis University, we are your family members. Golis University is your home, away from home. This is the place where your dreams are going to be nurtured, your skills are going to be improved, so that you can become the person that you want to be sometimes in the future. At Golis University, we have all the necessary requirements to make you be the person that you want to be. We have all the laboratories, we have all the necessary teaching personnel who are fully qualified and with international certifications. Golis University, we shall try as much as we can to make sure that we provide you with relevant and quality education as much as is needed. With those few remarks, thank you very much and wishing you all the best.